importance of indigenous knowledge. The fact that the Somalis are born social workers. It's inborn, I mean, it's there. So now it's just coming out for them to be. Both ministers are emphasized. You will agree with me that social services, needs-based, of course, this particular country suffering. Professionally to do this job. So I think that is. I think this is a very important event, and I'm also very pleased. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaa sharaf weyn ii ah maanta in aan daahfurno curriculumkii ugu horeeyay ee shaqaalaha adeega bulshada. Waxa waaye arrin ay wasaaraddu ay soo waday wasaaradda tacliinta sarena sidoo kale ay maanta nala joogto. waxay noqonaysaa program 5 sano socon doono oo ma aragtay looga faa'iideynayo jaamacada Soomaaliyeed ay ku jiraan oo ardayda Soomaaliyeed lagu bari doono arrin oo Soomaalidu ay weligeedba qabto oo ah ma aragtay Soomaalidu waxay hidde iyo dhaqan u leedahay inay tahay dad iscaawiya, dad iska warqaba. marka arrin annaga hore aan Soomaali ahaan u qabnay oo dhaqankeenu ka mid yahay inaan iscaawino ilmaheena agoonta ah ka warqabno dadkeena waayeelka ah daryeelno ayaa maanta waxaan ku bedelaynaa inay xirfad noqoto taasoo fursad u siin doonto dhalinyaro badan oo ma aragtay inay shaqooyin loo abuuro oo jaamacada ay ka soo baxaan. Programkan waxa uu noqon doonaa mid diploma bixiyo oo 2 sano oo qofku uu ku dhameyn karo ama bachelor uu ku qaato. isla markaasna waxaan uga faa'iideynaynaa ardayda inta ay wax baranayaan iskuulka ku jiraan in ay haddana ay wasaaradihii iyo hay'adihii samafalka xafiisyadoodii ama xafiisyadii ma aragtay UN-kaba inay practic ahaan u tagi karaan ee shaqadii ku baran karaan iyadoo waxbarashada ay ku jiraan. marka waxay kaloo fursad siin doontaa arday in oo maaragtay scholarship lagu siiyo ardayda familiyadoodu aysan awoodin in oo maaragtay ayagana la soo gacan qabto si ay mar walba bulshadu ay u dhan tahay. waxaa maaragtay sharaf weyn ii ah in oo maaragtay xukuumaddu ay maaragtay arrintan oo milestone weyn ah oo qorshaheena qaranka ku jiro inaan maanta aan maaragtay daahfurayno insha Allah September uu bilaaban doono. wasiirkiina oo maaragtay maanta oo tacliinta sare uu nala joogo sharaf weyn ayay noo tahay. tani waxay la tahay aniga waa talaabo weyn oo la qaaday, waa ma arkaysaa cilmi cusub oo annaga aan naqiinay oo dunidana ay taqaano, laakiin maanta aan rabno in aan nadaamino oo aan ka dhigno mid xirfad leh oo sida cilmiyada kale ah ma arkaysaa aan u isticmaalno. marka waxay ahaaday 2 maalmood ka hor markii aan daahfurnay manaahijta ma arkaysaa dalkoo idin oo dugsiyada hoose. kanina waa ma arkaysaa tii tacliinta sare, inkastoo tacliinta sare ay programs tahay ay ka duwan tahay dugsiyada sare ay ka duwan tahay, laakiin waxaa weeyaan si aan u soo saarno aan annaga khadamaadkii ama servicekii dadka ay heli jireen aan u hagaajino kii baan nidaaminaynaa. marka waxaan keenaynaa dad haddii la yiraahdo oo xirfado fiican leh, dad xirfado fiican leh si loo keenana waa in la helaa haddana content ama ma arkaysaa manhaj fiican oo dadkaas wax lagu baro iyo macallimiin fiican. taas waa marka wax la wado waa wax ma arkaysaa haddii ma arkaysaa sida aan u qorsheynayno oo u dhaco dalkana faa'iido ugu jirto, cilmi cusub oo nagu soo kordho uu noqonayo, bulshadii ay ma arkaysaa ka helayso aqoontii aan iska samayn jirnay waagii hore aan nadaamsano, shaqo abuur badan waxaas ka dhacay. marka waa arrin ma arkaysaa dawladda idin iyo wasaaradaha ay khusaysa khaasatan adeega bulshada inay ka wada shaqeeyaan loo baahan yahay, qof walbana uu ma arkaysaa kaalin ku leeyahay.